war-saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen madaxweynihii hore ee dowladda federaalk Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, wasiir hore ahna hogaamiyaha xisbiga wadajir mudane xildhibaan Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ayaa u dhignaa sida tan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu talada dalka la wareegay iyadoo uu dalku leeyahay dastuur la isku raacsan yahay, guddi doorasho, xeer doorasho iyo mid xisbiyada intaba. wuxuu bedelay dastuurkii dalka wuxuuna sameeyay xeer doorasho iyo xisbi. wuxuu magacaabay guddi doorasho oo dhammaantood loogu soo jaangooyay rabitaankiisa shakhsiga ah. haddaba waxaan ka digaynaa halista xeerarka doorashooyinka, xisbiyada iyo guddiga uu madaxweynuhu magacaawday ee la sheegay in uu madax bannaan yahay, doorashooyinka dalkana uu madax bannaan yahay, maadaama uu ku dhisan yahay dastuurkii sida sharci darrada ah loo bedelay. sababtoo ah wax kasta oo baadil lagu dhisay waa baadil, hal xaaraan ah nirig xalaal ah ma dhasho. Cabdiraxmaan Cabshakuur, Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kaleeto waxa ay u jeediyeen dowladda federaalk Soomaaliya daliilo xoogan, waxaana ay sidoo kaleeto war-saxaafadeedkooda ku yiraahdeen dastuurkii ku-meel gaarka ahaa ee la isku raacsanaa qodobadiisa koowaad farqadiisa koowaad, qodobka saddexaad farqadiisa saddexaad, qodobka 46 farqadiisa saddexaad, qodobka labaad ee qodobka 111 waxay si cad markaasi u dhigayeen in arrimaha taabanaya masiirka dalka aysan markaasi qolo gooni ah ama markaasi dowladda hadda markaasi talada haysa keligeed go-aan ka gaari karin. go-aan kasta oo taabanaya doorashooyinka waa in markaasi heshiis lagu yahay oo uusan abuurin xasarad siyaasadeed, qalqalgelin amni iyo markaasi kala qaybsanaan dalka. waxa uu waraqadan oo dheeraad ay ku tilmaameen in aan marnaba markaasi loo hoggaansami karin awaamirta kala duwan iyo waxyaabaha dowladda ka soo baxaya oo ay ka mid yihiin arrimaha ku aadan doorashooyinka iyo beddelka dastuurka oo wadooyin qaldan loo maray. waxa ay waraaqadooda kusoo gebagabeeyeen haddaba waxaan shacabka Soomaaliyeed, saamileyda kale ee siyaasadda iyo saaxiibada daneeya arrimaha Soomaaliya la socodsiinaynaa in aan qaadacnay guddiga xeerarka doorashada iyo kan xisbiyada, waxaana uga digaynaa in aysan markaas ku kadsoomin. Caynul Caafiya Hospital waxa uu ka daweynayaa xanuunka baabasiirka. ma dareemaysaa dhabar xanuun, caajis joogto ah, cuncun dhanka hoosa, saxaradoo kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha? haddaba iskaga ciribtira xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn. wixii faahfaahina kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3777.